كوماسا calanka Soomaaliyeed calanka buluuga calanka waa calanka ummadda ka dhaxeeya weeye xidig baa dhaxda kaga taalo shan gees leh waa Djibouti waa Jigjiga waa Hargeysa waa Muqdisho iyo Gaarisa weeye waa shanta Soomaaliyeed weeye aad iyo aad Soomaali meel walba tuu caalamka uu ka joogo iyo geeska Afrika meel walba uu ka degan yahay waa calankiisi weeye ma sha Allah idna kama xigto Soomaaliya oo dhan buu dhaxeeyaa muwaadin walba oo Soomaaliyeedna waxa waajib ku ah inuu calankiisa ixtiraamo sharfo respect gareeyo dawlad baan haysanay military ah oo xoog ku qabsatay dalka 1969 askar bay ahaayeen askartaasi dimuqraadiyadii iyo dawladii noo jirtay iyo dastuurkii Soomaaliya ka jiray weelaash dawladii militariga Soomaaliya ka jirtay waa caburinaysi dadka ciideedii karta ma laha qof walba oo rejiimka markaa jiray ka hor yimaado xabsi bay dhigaysay ama waa tooganayso Soomaalidii waa xanaaqday dawladii waa la dudumiyay waa lagu kala yaacay qaar Kenya galeen qaar waqooyiga Soomaaliya aadeen qaar dibadaha iyo America iyo Europe bay u soo dhoofeen isku soo duduub Soomaaliya dib baa la isugu soo celiyay meel baa la fariisiyay waxa lagu yiri maadaama aad diideen oo aad hadda korna rudeen dawladda militariga ahayd maxaad ku qanacsantiin oo rabtaan inaad samaysataan waxay yiraahdeen dawlad rayide ama dawlad dimuqraadiya oo shacabku ay ka timaado oo shacabku ay doortaan ayaan samaysanaynaa sideed ugu heshiinaysaan balina ayaa faaduma qofka la dhaho isaga bax meeshan waxba hooyada cayn adoo magac dumar wato kulli uma malaynayna qof dumar tahay haddii aadan ku qanacsanayn duqbulo wuxuu ka hadlayo isaga bax aan welcome ba ka tahay tartiib ka bax qofka faaduma wato isaga bax meeshan waxa la yiri qaabkeed ku heshiinaysaan oo aad dawlad ku dhisanaysaan waxay yiraahdeen qaab qabiil oo 4.5 waxa hadda anaga aan ugu yeerno yaan ku heshiinina oo dawlad ku dhisanayna beesha caalamka oranaysa arintayada 4.5 kii waxay yiraahdeen afar qabiilo waaweyn baan nahay iyo qabiil hal qabiilo bar ah macnaha qabiil aan dhameystirnay sida hadalka u dhigeen waxay sameysteen afarta qabiilo waaweyn 61 iyo 61 iyo 61 iyo 61 marka 61 aan ku leeyahay waxa weeye waa 61 xildhibaan oo afarta qabiilo waaweyn ee Soomaalida laga soo xusho iyo qabiilka 0.5 ka ugu yeereen ayagana xildhibaano la yimid road map bay dhigteen oo dawladnimada ay ku socodsiinayeen road map kaasi wuxuu ahaa in Digli Mirifle ay qaataan golaha shacabka Soomaaliya in Hawiye iyo Daarood ay ku tartamaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha beesha afaraad oo dir ah waa qabiilada waaweyn ba ka hadlaya inay qaataan ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo magaraysaay maxkamadda sare iyo dhowr position oo u kabaya awoodda u kabayso waa awood qaybsiga dawladeed qaabka loo heshiiyay okay waa soo socotay madaxweynaha la doortay ku meel gaare waqtigiisu ku socday 3 sano 2 sano waxay noqoto madaxweyne kale ku meel gaare baa la doortay 2 sano waday dawlad rasmi baa loo gudbay dawladda rasmiga ahayd markii loo gudbay la yiri baarlamaanka had doortaan oo dawlad la aqoonsay beesha caalamka aqoonsan tahay baa la sameeynaya yaa boy afarta qabiilo waaweyn markii laba laga reebo laba soo hartay beesha Daarood waa u tanasushay beesha Hawiya ku guuleysatay nin Abgaal Cusmaan waa Xasan Sheekh Maxamuud weyn kumuusa imaanin dagaal uu la dagaalamay afarta qabiil ama shanta qabiil kale ee Soomaalida dagaal uu la dagaalamay kumuusa imaanin wuxuu ku yimid baarlamaanka 275 xildhibaan cod ay siiyeen buu ku tagay 275 xildhibaan waxay yiraahdaan waxaanu matalnaa shacabweynaha Soomaaliyeed 40 milyan dhageysta hadalkeedu dhageysta ninkii Abgaal Cusmaan ahaa dir iyo Daarood iyo Hawiye yaa sanduuqi cadaa ee aan daawanayna ee boorka meeshii hoolka booliiska lagu qabtay baa lagu riday waxa madaxweyne ah baa la yiri oo gudoomiyihii baarlamaanka markaa oo Mr Jawaare uu ku dhawaaqay in Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay madaxweynaha Soomaaliya asaga oo la dagaalamin beesha Daarood beesha Digli Mirifle
iyo 0.5ka iyo beesha dareed asaga oo qor iyo hub iyo hoobiye u qaadan yaa la yiri waa madaxweynaha Soomaaliya madaxtooyadii Soomaaliya tagay xasan sheekh shariif sheekh axmed oo madaxweyne ku meel gaar ahaa ya calankan Soomaaliyeed iyo xafiiskii fila Soomaaliya iyo deegaankii dhanaaye fila Soomaaliya furaheedii u farta ka saar xasan sheekh maxamuud waxa lagu yiri socodsi dowladnimada Soomaaliya afartii sano watay wuxuu sameyn karo iyo wuxuu sameyn karin ba afartii sano wuu dhameystay ma arkin anigu mana maqal mana iga suurtoobin shacab kale Soomaaliyeedna suuragal ma aysan la noqon inay yiraahdaan xasan sheekh maxamuud waa hawiye ama waa abgaal xoog buu ku qaatay daarooda uu hubka qaata ama raxaweeray hubka qaata oo dagaalama oo ka saara filla Soomaaliya ma aysan mana ornaaniga qabiilada kale Soomaaliyeedna ma aysan afartiisa sano mucaarad buu lahaa afartii sano ee xasan sheekh maxamuud oo beesha hawiye abgaal u dhashay mucaarad buu lahaa muxaafadna buu lahaa mucaaradka xasan sheekh maxamuud ka soo horjeeday ma aysan ahayn kuwa gaandhari iyo hub iyo qori ku faantamayay ma aysan ahayn waxay dhaliilayeen wax qabadkiisa dawladdiisa iyo magaranaysaa fashilka dawladdiisa yay banaanka keenayeen ma aanan arag ma aanan maqal idinkuna waxaan u malaynayaa inaan arrintaas aadan maqal dhageysta laakiin waa la mucaaradii afartii sano ee dastuuriga ahayd ee 275 xildhibaan ay doorteen ee loogu talagalay inuu afartaas sano dhamaysto ayuu dhamaystay Sheekh Maxamuud waxaa la isugu soo noqday isla hoolkiiba dib loogu soo noqday sanduuqii caddaa waana wax faataan bar waana wax faamaan sanduuqii caddaaba mar labaad la dhigay waxa la yiri hal la doorto nin kale oo 4 sano kalena xukumo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo rag badan ba tartamaya saddexdaas ugu cadcada siyaasad bay isula tageen ayagiiba hoosta ka heshiiyay ninka daarooday hadda madaxweynaha yaa codkii loogu rido 184 cod 184 cod yaa loogu rido sanduuqiisa hawiye ma uu sanbursanin dir iyo daarood kalena ma uu sanbursan sanduuqii caddaa ee la dhigay yaa 184 warqadood loogu riday sidii uu xasan uu ku tagay filla Soomaaliya ayuu ku yimid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo bal dhageysta hadalkay calankii baa lagu wareejiyey dastuurkii Soomaaliyeed yaa lagu wareejiyey filla Soomaaliya furaheedii baa lagu wareejiyey wuxuu bartaa ku tagay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo cod shacab ku tagay okay dawladda inoo dhisan waa tu saa u shaqeyso weey wixii aan ku heshiinana waa wax sidaa u shaqeeyo weey bal hadalkayga aad u dhageysto soo dhawaada ma sha Allah sina gudbiya sina sheer gareeyo dawladda ay Soomaaliya ku heshiis waa mid sidaa u shaqeyso weey xaga iga dhig marka dawladnimada waxaan kor ku soo qoray oo ku xusay laba qabiil oo qabiilada Soomaaliya ugu weyn kamid ah waa beesha habargidir iyo beesha abgaal weey abgaal Cusmaan abgaal waxay madaxweyne dalka Soomaaliya ka ahayd sheekh shariif laga soo bilaabay ilaa xasan sheekh maxamuud laba teeram oo isku xigay bay madaxweynimo dalka Soomaaliya ka noqotay habargidir kumeel gaarka ayagan cabdiqaasim salaad xasan baa madaxweyne u ahaa beesha daaroodna laba jeer bay madaxweyne noqotay marna cabdullaahi yuusuf oo kumeel gaar ahaa iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo dhalasho ahaan beesha daarood ka soo jeedo okay halka ay dhig marka sababta aan ugu soo qoray ciwaanka Facebook live-ka aan soo galiyay abgaal Cusmaan iyo habargidir baan rabaa inaan su'aalo weydiiso toos hadallada aad Facebook-ga ka oranaysaan iyo hadallada aad idaacadaha Muqdisho ka oranaysaan way isleeyihiin waa similar way waa wax isku eg way su'aasha marka aan raba abgaal iyo habargidir aan raba inaan weydiiyo waxa weeye marka aad isku misaalaysaan
سودان يا صوماليا مركات إسو كينيسان الذين عمر البشير بدضبا قريقا تيو لدقا الله الذين حكم بالغردي فرماجة مسيدة السودان عمر البشير او كراتو صدو السنة قوري كوغا يستاي اوكو عبرنين سؤاش كوات هاسوين ومية ونن لو بقول اتطباطا نن لو بقول تطباطا يشنن او سومالي تيري مكيل باكاي اي عدو حقورو دوي اسكو ميد ما waxaan rabaa marka inaan weydiiyo oo aan su'aal kale mar labaad ugu xijiyo abgal iyo habar gidir mar labaad aan rabaa inaan ugu xijiyo dadkooda idaacadaha odayaashooda idaacadaha ka hadlayo iyo kuwooda Facebook ka hadlayo su'aasha kale aan rabaa inaan weydiiyo waxa weey marka aan ku heshiinay calanka ee dastuurna aan ku heshiinay adiguna aad shalay soo maamulaysood madaxweyne ka ahayd oo Soomaali kugu daba feeshaneedood lahayd Soomaali baan ahay dawladda Soomaaliyan madaxweyne ka ahay calanka buluuga ana dhabarka ii saarayaha aan lahayd oo annaguna oo shacabkii Soomaaliyeed aan shacab ku ahaynon taxi beer ku ahaynon meel walba oo Soomaaliya iyo magaalo walba oo Soomaaliya madaxweynaha uu tagay calanka iyo dadka Soomaaliyeed soo mas'uul kama ahayn وسؤاشا الربنا كويدي وحاوي مركا عاد كو هلاقيسان leedihiin idaacadaha aad ka leedihiin daaroodka bursada mareexaanka bursada farmaajo bursada ee 18 taayirro soo qaata hubna soo qaata aad leedihiin ee sidii 1991 daarood aad muqdisho ka bursataan iyo Soomaalida kale illa meesha aad u socotaan siyaasiga idin kicinayo kursiga oo u socdaa madaxtinimada yaad rabtaan marka inaad maamushaan markaad madaxweyne mandate leh oo 4 sano la doortay waxaan la hadlayaa dadka shacabka isku jiro waa kala duwan waa habar gidir iyo afgal markaad maanta qabiil ku kicinaysid maatidaadii markaad maanta qabiil ku kicinaysid shacabkaagii ee siyaasadaadii qabiil ay noqotay madaxweynihii dastuuriga ahaa ee Soomaaliya dooratay iyo baarlamaanka adiga ku mataliya ka aniga imatala ay doorteen ad maanta hadalkaaga uu noqdo Umar al-Bashir oo kale iyo farmaajo waa isku mid leedahay oo dawladdan aniga adiga aan ku soo heshiinay markaad farmaajo bursataan ee aad hub qaadataan